wacan daawadayaal halkan waa shabakada DEG News ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid noqonaya Kenya oo si adag uga jawaabtay qoraal ka soo baxay James Swain xildhibaano mucaarad oo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay khiyaano qaran Jubbaland oo ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay xidho xuduudaha kismaayo iyo dhul iyo bad intaba wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo booqday xare tababar ciidamada xoogga dalka uga socdaan oo ku taala Gurceel markale kulan wacan daawadayaal intaas waxaan qodobada ugu waaweyn wararka shabakada DEG News Eedeynta xilligan aan ku bilownay dawladda Kenya ayaa waxay digniin ka soo saartay in la carqaladeeyo hanaanka geedi socodka doorashada madaxtinimada Jubbaland oo ka socota magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in beesha caalamku ayna u dhameyn warka doorashada Jubbaland ee ka soo saaray James Swain wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya bayaankan ayaa lagu sheegay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo saddex xisbi qaran ee ka tirsan siyaasadda Soomaaliya oo ay kala hogaaminayaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay taageersan yihiin geedi socodka doorashada Jubbaland Kenya ayaa ku andacoonaysa in tallaabada beesha caalamka ay ka qaybiyaan wadamada midowga Afrika ee ciidamada nabad ilaalinta ka jooga dalka Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia oo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan noqol kamid ah oo u diray safaaradda Ethiopia bayaankan ayaa ku socda kaaliyaha xogayaha qaramada midoobay arrimaha siyaasadda waxayna Kenya uga digtay in saacadaha ugu dambeeyay ee doorashada Jubbaland la carqaladeeyo dawladaha Kenya iyo Ethiopia ayaa waxa soo ifaxasay sida ugu dhaxmilmeen doorashada Jubbaland xukuumadda Nairobi ayaa waxa la fahansan yahay in xiriir dhow la leedahay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee maamulka Jubbaland Axmed Madoobe halka xukuumadda Addis Ababa ay si dhow ula shaqeynayso dawladda federaalka Soomaaliya markana xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa madaxtooyada Soomaaliya ku eedeeyay in ciidamada Ethiopia ay u adeegsanayso doorashada maamulka Jubbaland kaasi oo la soo baxday waji cusub oo ku tilmaamay khiyaano qaran xildhibaan Fiqi oo taageeray Axmed Madoobe ayaa sheegay in isku day kale oo khiyaano qaran ah ay shalay galinkii dambe lagu fashiliyay Kismaayo kadib markii ciidamada commandosta Ethiopia ka degaan garoonka Kismaayo kadibna ay ku guuldareysteen sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in doorashada Jubbaland iyo dawlad goboleedyada midba midka ka dambaysa ay ka sii darayso sida ay dalka Soomaaliya ay taladiisa loo hoosgeeyay dawladda Ethiopia qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuuna ku sheegay ciidamada Ethiopia ee arrimaha hoosaadka doorashada Kismaayo loo adeegsanayo hadba waji cusub ay la soo baxayaan waana khiyaano qaran oo xafiiska madaxtooyada Farmaajo ka dhacaysa ayuu yiri isku day kale oo khiyaano qaran ah ayaa shalay galinkii dambe ku fashilmay Kismaayo kadib markii ciidamada commandosta Ethiopia oo ka tirsan loo soo kireystay inay si tartiib ah isku yimaadaan una soo galaan Kismaayo ugu dambeynna ku guuldareysteen ayuu sheegay doorashada dawlad goboleedyada waxaa midba ka dambaysa ay ku soo daraysaa sida dalka Soomaaliya taladiisa loo hoosgeynayo dawladda Ethiopia laakiin taasi waa mashruuc la soo tijaabiyay laguna guuleysan waayay ayuu yiri xildhibaan Fiqi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka markana maamulka Jubbaland ayaa soo saaray go'aano amniga la xiriira magaalada Kismaayo laga bilaabo 20 bisha ilaa 23 bisha waxaa la sheegay in guud ahaanba xuduudaha soo gala magaalada Kismaayo ay xidhan yihiin go'aankan ayaa waxaana si weyn loogu dhawaaqay in laga bilaabo maqribka 20 bishan sideedaad sanada 2019 ilaa 23 bisha sideedaad ay xuduudaha magaalada Kismaayo dhul iyo bad intaba ay xiran yihiin shir ay iskugu yimaadeen guddiga amniga dawlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale waxaa lagu dhawaaqay laguna wargeliyay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kuwada ka howlgala magaalada Kismaayo nawaaxigeeda guddiga ayaa sidoo kale waxay fareen amniga dawlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada Amazon ee maamulaya garoonka diyaaradaha Kismaayo dekeda Kismaayo iyo baraha control ee laga soo galo magaalada Kismaayo inay xaqiijiyaan meelmarinta go'aankaasi ugu dambeynna wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa socdaal ku tagay magaalada Gurceel ayaa ku booqday xerada Harqabow oo tababar uga socdaan ciidamada xoogga dalka lagu diyaarinayo in xoreeyaan deegaanada Galmudug wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya
oo saraakiisha ciidamada ka xog wareystay xaaladda ciidanka tababarku ku jira ayaa socdaalka howlgalkan ciidamada loogu diyaarinayo sida ay deegaanada ay kaga sugeen xarakada al-shabaab ee galmudug looga xoreyn lahaa. taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad oo wasiirka amniga gudaha xukuumadda uga warbixinaya sida ay u socdaan tababarkan ayaa sheegay in ciidankan ay u diyaarsan yihiin gudashada waajibaadkooda ka saaran galmudug iyo guud ahaan ilaalinta qarannimada. maxamed abuukar islow ayaa saraakiisha ciidankan uga mahad celiyay tababarka ay siinayaan, dhanka kalena waxa uu u rajiyay ciidamadaasi inay ku guulaystaan ilaalinta deegaanadaasi iyo weliba ka qayb qaadashada xoreynta deegaanadaasi. ciidamadan lagu tababarayo xerada harqabow ayaa qayb ka ah ciidamada taliska 12aad ee loo diyaarinayo xoreynta guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug si loogu hubiyo fulinta mashaariicda horumarineed loona gaarsiiyo adeegyada bulshada ay xaqa u leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi. guud ahaan saaxiibayaal waanaga intaas warkaad kala socoteen waqtigan shabakada Heega News daawaday haddii ay tahay markii kugu wareysay daawashada channelkan subscribe videogana like saar si aad noola socoto wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka.